qaraxan oo sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda kumeel gaarka ahaa miina dhulka lagu aasay ayaa lagu qarxiyay gaari ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha gobolka Hiiraan xilli uu ku sii jeeday gurigiisa agaarka hotel Webi Shabeelle ee bartamaha magaalada Beledweyne mid ka mid ah dadka goobaha ganacsiga ku leh goobta qaraxu ka dhacay ayaa BBC-da uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo intay la egtahay khasaarada uu indhihiisa ku arkay. Cabdirashiid aadan guuro waxaana ku magac dheer Qoray meesha uu qaraxa ka dhacay ayaana ka soo horjeedkeeda ayaa deganahay aniga khasaaro weyn ay soo gaaray nalalkii waa iga jajabeen oo banaanka kuwa gudaha waa iga jajabeen muraayadii mataqaanaa qaybta oo biigtada waa iga wada jajabeen raashinkii dhibaato badan baa naga gaartay xataa naftarkeeda inta ishayda ay qabanayso dadka meesha ku geeriyoodan 4 qofood eeday in ka badan oo dhaawacana waa jirta oo mataqaanaa hadda meesha laga daadguraynayo ma garat baabuur kale la beegsan markaa oo meesha marayna baabuur oo ciidanka uu leeyahay dawladda kumeel gaarka u ahay Cabdibila aniga kulliba gudaha ku jiray markaas laakiin sida ay mataqaanaa oo qaraxa u dhacay laamiga qarkiisa la geliyay kuyo kale mataqaanaa meesha ku yiiray shaqafkana ma ka kacay albaabka waa jajabay baalo oo biyo lagu cabo mataqaanaa fuusiyaal waa jajabeen dadka dhaawac markay ishayda ay qabanaysay hadaa qiyaasana adiga 27 ay dhamaayeen inta loo yahay ilaa 6 qof ayaa ku dhimatay qaraxan maanta ka dhacay magaalada Beledweyne sida ay noo xaqiijiyeen ila kala duwan oo ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay qaar ka mid ah meydadka iyo dadkii dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne sida uu goorraway BBC-da uu sheegay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Beledweyne Dr. Maxamed Xuseen Xalane oo qadka telefoonka aan kula xiriirnay waxa la soo gaarsiiyay laba dhaawac iyo laba dhimasho iyo dadkan ma xawaa isku jira kulli shacab oo badan ma garatay ma waa habeyn hadda waa jisnu xijifay wixii fuudayn hadda habeyn ma sha Allah dadka waxyeeladu ka soo gaartay qaraxan maanta ka dhacay magaalada Beledweyne oo ahaa mid aad u xoog badan ayaa badankoodu waxay yihiin dad rayida oo ka mid ahaa dadkii goobahaasi ka agdhawaa maadaama aaga uu ka dhacay ahayd meel saxmada oo dadku ay aad ugu badan yihiin oo ay ka agdhow yihiin goobaha ganacsiga sida suuqa caanaha iyo suuqa yar ee lagu iibiyo qudradda maaha markii ugu horeysay qarax noocan oo kale oo iska cadahay in lala bartilmaameedsanayay mas'uuliyiinta dawladda kumeel gaarka ee ku sugan gobolkan Hiiraan ay waxyeello ka soo gaarto dad rayida waxana uu qaraxani qayb ka yahay dhibaatooyinka baaxadda leh ee shacabka Soomaalida ku haysta guud ahaan dalka Soomaaliya oo ay jirin cid wax ka qabanaysa taas oo uga imaanaysa kooxaha isku haysta siyaasadda dalka Soomaaliya oo ay jirin cid ay u naxariisanayaan oo aan la ogeyn halka ay saldhigan doonto ayaa la Xuseen Cabdi BBC Beledweyne.